habeen madow markii aan soo wacay war xabsi aan ku jiraa aan dhahayno taleefanka ugu danshay derbiga labada dhinac Soomaali naga horreysa lagu xiray qoraal ay uga tageen marka dhinaca kale derbiga waxaa ku qoran far kale oo ayadana dhuxul lagu qoray waxaa ku qoran walaalayaal waa laydin baara doonaa lacagta qarsada qof u dhiiba qofkana dhagool ha iska dhigo qaar gacmeedu dhiig loo hilibka doofaar kale lacagta noo keenay diyaani waxaa ku kulmo taariibayaasha Afrika iyo dalxiisayaasha Yurub saxaabyaal aad idin salaamaya barnaamijka xasuus reeb ama jabkii jidhi waxaa maanta marti igu ah Cabdisaaq Xasan Jidhi oo wada taqaaniin oo ku magac dheer aqwaan niho warta jabkii jidhi marka la dhaho waa iska badan yahay marka qof walba nolosha wuxuu ka soo maraa jab meel badan ugu qabsada laakiin sheekada ugu daran waxay ugu qabsatay waddanka Zambia xadka magaalada la yiraahdo Nakonda oo loo leeyahay Tanzania anagoo ka soo tagnay ayaan waxaan galnay xabsi markaas waxaan ahayn 7 qofood xabsiga markaan galnay marka nin xabsigiisa ciidan ahay aan isku daynay maartay ishaag inaan iska afgarano markii bilowga aan xabsiga galnay marka xabsiga derbigu leeyahay wareegsan derbiga labada dhinac Soomaali naga horreysa lagu xiray qoraal ay uga tageen marka labada dhinac waxaa ku qoran fariin dhinaca kalena waxaa ku qoran fariin kale oo maalinka ogaaday qarannimo iyo qabiil macnaha inta isu jiraan nin ayaa wuxuu gees ku qoray magaciisa oo saddexan wuxuu ku qoray hebel hebel beesha daarood majeerteen taariikhda uu xiraay ayuu ku hoos qoray dhinaca kale derbiga waxaa ku qoran far kale oo ayadana dhuxul lagu qoray waxaa ku qoran walaalayaal waa laydin baara doonaa lacagta qarsada qof u dhiiba qofkana dhagool ha iska dhigo saasaa ku qoran markii lacag badanaa wadana runtii waddankaasna dadka xoogaa dhagoolada iyo waa laga tixgeliyaa hal ninaan u dhiibnay ninkiina waxaan ku amarnay oo u sheegnay inuu dhagool iska dhigo sidii lacagta ku noogu badbaaday inteeni kale sina loo baaray ilaahay uu ogaay marka runtii Soomaalida meel walba tagayaan waxa waaye qofna wuxuu ka fikiraa dadka ka dambeeyo qofna maalinkaas xaalku ku sugan inuu ku badbaado hadda waxaa laga yaabaa ninka fartaas qora laftigiisa inuu isla beeshan oo ninkan uu sheegtay isku mid inay ahaayeen haddana fikradda ay ku kala duwanaayeen sheekada marka ma turjumaysa qabiil gaar ah macnaha laakiin waxay ka turjumay dhacdo runo oo aniga la kulmay inay tahay qofna uu maartay sheekh Soomaali badbaadiyay iyo dad badan oo ka dambeeyay oo ka fikiray qofna uu asiga bas iska fikiray hebel hebel oo beeshaas ahay oo meeshan ku xiray yow Jidhi waxa war iga siisaa barnaamijka ninkii kibriid ahay kibriid iyo adiga waxay kala qabsaday isla magaalada la yiraahdo Tanduma oo xadka Zambia saaran ayaan tagnay guriga nagu la xiray gurigaas marka waxaa lahayd gabar muqallasada oo la yiraahdo caan ahayd oo la jir Jawaahir waxaa joogi jiray maamulaya maama Sahro oo dadka hore oo dawlad siyaad barro u shaqeey jira guriga tuba ma lahan ceel ayaa maartay wadaan la darsadaa magaalada markay meel dalacday leedahay magaalada dhan waxaa jooga immigration hal askari oo laga cabsado askarigaas waxaa la yiraahdaa marka kibriid xoogaa isha oo si ka ahay waxa xasuustaa waa nagu la cabsi jiray xilli jiray banaanka daa u baxdin kibriida ay qabaa kibriida asaan ka dhaca guriga marka waxaan ugu haystaa wax walba qaaliya nagala siiyaa dukaan yar oo guriga ku yaal maalinka dambe nin kale oo samiga ya Cabdisaaq la jiray aniga inta fikir albaabka iska furnaa iska baxna saa u socono waxaan tagnay maqaayad ay Soomaali leedahay raashin raqiisan ka cunay masaajid aan tagnay salaada ku soo dukanay maqaayad Soomaali markaan ku soo laabano markii dubnad labana fadhiso dubnada la ciyaar aniga nin kale dubnad waa naqin oo fadhisanay dubnadana marka la ciyaarnay foora ku keenay fooradii saarnay ayadoo markii foorada noo saaran tahay aan muqalas kibrida ka soo galay ilaa ninkan foorada noo saaran tahay waa kibriidkii laga cabsanayay askarigii dhamaa oo laga cabsanayay magaalada dhan jooga waa Tanzania ka anaga ninkii foorada saarnay waa ka soo tagnay laba dhalo faantaa soo gadanay wadada iska soo galnay anaga iska baashaalayna muqalaskii oo gaari wataan daba imaado markaas soo gal gaariga markaan galno oo madaxa qabsado war muwaalintiin war ninkii dhamaa oo kibriid oo laga cabsanaya maanta dubnad la ciyaarteen foora saarteen halkii qof oo la xiro $1,200 lagu soo diyaado wana $1,200 ma naqaan gurigan aan ugu xiratan naga wad taariifka noo sii wad haddii kale iseen maalin kasta kibriida la ciyaarayna dubnad marka sheeka cajiib ah waxa la dhahaa marka Soomaaliya ku amaada libaax nina aqoon Allah ka rito ninka aan libaax aqoon xoolaha soo raaca neefad dufka yiraahdo ka warda kula dhaga laakiin ninkii yaqaan libaax marka halkaas soo maro ka dhuumana waxa kale oo war iga siisaa oraahda caan ka baxday maaragtay qac hebel qaca ka yeertay siyaasi hebel qaca laga yeersiyay waxa la yiraahdaa qaca yeertay horta hore u jirta de waa ilaa sidii wax la isticmaalay laakiin aniga u badan dadka isticmaalo Facebook iyo social media ana ku soo celiyay waxaan ku isticmaali jiray waxay ahayd South African ka shaqeey jiray marka subaxi marka maanta dhan adigoo shaqeynayay dukaanka aan jifano jaranjara lagu fuulaa kor loo fuulaa marka nin maanta dhan shaqeynayo dhabarku kala jaban yahay waa taqaana jaranjarta fuulitaankeeda ay dhibto marka
marka midda la koowaad midda saddexaad markaa mar waxaan leeyahay war odaga qaca ka yartaa leeyahay xarbaan dukaanka joogta markii odaga qaca ka yarta ilay kor markaa subax haddana soo degay jaranjartii haddana kusoo degay jaranjartaas waa alwaax marka koraa loo fuulay aad ay u dhib badneed qaca jirta marka meeshta waa isticmaalkeeda aan ka bilaabay kabacdina social media keenayo nin siyaasi oo maaragtay sheekh shalan war ku hadlahay maantana war kale ku hadlaa soo dul saara waxaan leeyahay ninkan qaca ka yartaa la ninaa meel kumanti ka dhiibana war u dhaha war kale oo ka daranaa loogu jawaaba meeshaas ninkaas qaca uga jirta marka dhallinyaradii ay qaadeen tiktok hadda waxaa arkay heblaay qac laga yersiiyey ayadoo leeyahay ama heblaay qac laga yersiiyey cabdisaaqow waxaa iga warataa horta muqallisiinta warga sii wallahi niyow muqallisiinta nimanka la yidhaha aniga baaru waxay iga direen xafiiska lagaa diraa irdiisa waxaa ku qoran fiisaha maraykanka canada ruushka sacuudiga south africa finland congo brazzaville bulgaria waddan aan ku qorayn male waxayna dhaheen markee laba mid kala dooro south africa inaa laba isbuuc ku tagto inaa 3 isbuuc ku tagto markaas waxaan dhaha warniyo 2 isbuuc igu geeye waxay dhaheen haddana marka lacagta kala dooro $500 in lagaa qaado nairobi aa maray waa ka qadayne tanzania iyo nairobi wadda isku xiriir ninka saas ku dhahay weligiis afgooy xataa ma tegin macnaha asiga meel uma bixin markaas wuxuu leeyahay rag badan marka dhalinyaro ahayn wuxuu dhahay qof oo jikinka xasaasiyad ku qabto ma ay ku jirto oo hilibka doorada si aan kalluun ugu dalbo markaas waxaan dhahnay waraaska cuni karnaa wax kasta jikinka iyo Soomaaliya saddex qanaad iyo bariis 2010 waxa waaye wax kasta la iska cuni laakiin runa u malayna waxa soo dhan markaas uu nawada ninka odaga intuu naga waday waa la ogaay dhobley meeshaan maaragtay sheeg qaxootiga oo dhadhaab waxaan joognay 15 maalmood aan joognay biyo ka aroorin muqalas horta saas waa sheekadiisa markaan nairobi tagnana nin oo waxa lagu xiriiriyay 4 maalmood oo soo afrika dadka ku geeya ninkaas iga hay baabuur meesha ka saaray toonka oo wuxuu u geeyay Mombasa meel leeyahay kadib Mombasa xabsi aa galay meel Diani iyo Kuala leeyahay buugayga bilana ku qoray waxa dhahay Diani waxa ku kulmo taariibayaasha afrika iyo dalxiisayaasha Yurub waa xeeb laba kala bariday kala warla meeshaas u geeyay habeen madow markii aan soo wacay war xabsi aan ku jiraa aan dhahayno taleefanka ugu danshay marka hore marka muqallisiinta malaba isu ka mariyaan marka dambana meesha ku dambayso waa la ogaadaa dukaankii markaan tagay South Africa yar aan isla shaqeey jirnay Ismaaciil la dhihi jiray wuxuu dhahay nina xamar iga soo diray dhahay ninkii magaciisa ii sheegay wuxuu dhahay xamar daadka tooriya ku dhufaa marka niyo muqallisiinta sheekadooda way dheertaa la yaabka Soomaalida waxaa kamid ah hadda ka hor ninaan South Africa iskala shaqeey jirnay meel tuulo ah aan dukaan isku lahayn marka ninkaas marka naag waxaa jiri jirta South Africana waxay ka ganacsataa hilibka doofaarka marka agteena ku dubtaa buray dhex gelisaa dadkay ka dubtaa ee ka gadaa intee noo imaatay waxay dhigi jirta marka niyahow lacag ma haysta maantay saliidda iyo leebitada macnaha burka ku duba iyo lacagta isii deensha lacagta saliidda isii doofaarkaas meesha igu xiran markaan qasho aan lacagta idin keenay dhigi jirta islaanta marka aan u bixino doofaar qasho oo bixin marka imaato doofaar qasho aan dhigi jirin marka qaar gacmeedu dhiig loo hilibka doofaar kale lacagta noo keeni jirta saa kaaba qaadayno salaada noo dhowr aan dhigi jirin lacagta marka la cadeemi jirin ninka saaxiibkay marka oo meesha iskala shaqeey jirnaa maalmaha kamid suuq bacaad ku balan cabaar suuq bacaad uu sheegay salaadii la adimay masaajid meesha ka dhawaaya aadna marka inaan salaad ku dukanaa rabin markaas fiir may masaajidka salaad ku dukamayno maxaa dhaca masaajidkan bisinka ka tagaan oo dhan markaas waxaan dhahay warniyo lacagta doofaar qashoy ninka qaadi jiraa tahay bisinka sheegay maxaa waay maanta markuu intii marka qosol ilaa hadda ninkaas wadaa saarno marka igu qoslaa oo dhahay ugu arad doofaar qashoy iyo bisinka maxaa saga gala cabdisaaqow waxaa jirtay sheekada buufiska ee buugga bilanka dhex aqriyay wallahi sheekada buufiska oo buugga bilan ku jirtay la yaabay lahayd waxay ahayd waxay ku saabsaneed naag oo maaragtay sheeg dhexdhexaad iska ah haweeney dhexdhexaada oo Nairobi joogta ayaa waxay ku waalata buufis marka 8 sano alleenka uu bixi waayay macna 8 sano Nairobi joogta nin ay qaraabihiin oo Ingiriiska markay yimid Ingiriiska wuxuu ku soo arkay naagtan naag u eg oo laga aqoon ku soo arkay laakiin dhib ka jira naagtaas ilay la hal ilay la saaxiibka marka naagta uu tagay baasaboorkii ku soo qaaday naagta uu kan wuxuu dhahay naagta adeeg ku agtahay Ingiriiska baasaboorkan ku galay laakiin shuruudda xitaa isha macna mistiri kartaa adiga naagtaas isha ula dhigi kartaa waxa shaqadayda way dhaaday qaab ku baxala ay baasaboorka la eekeen baasaboorkii uu keenay isha ay isku haysay ila boorka Nairobi ee Jomo Kenyatta soo martay markii taas oo soo mooday mugta diyaaradda soo raacday garoonka weynka Heathrow ka soo degay London markaas waxa baakiman intaas oo diyaarada dabaqyada diyaaradda intii si degan jawiga ku mashquulsho marka gabadhii waxay iska hilmaantaba inay illa aadba
ila boorka waxay ka degatay markii ayadoo iska qosli iska farxsan in boorka degatay isla markii mid immigration ah sargaala ka yimid baasaboorka markii la yiri ay baasaboorka dhiib waxaa ku soo dhacday inay ila eedo samar ku soo dhacday no saaxiibta isii dhakab isku dhacday markii markaas ninkii baasaboorka saa u fiirshay naagta duu fiirshay inay isku haysaa isha hadda isku weyn markaasuu ninkii saasuu naagta fiirshay markaasuu mar labaad baasaboorka markuu baasaboorka fiirshay waxa ku soo dhacday isha isku qabata maana isha kale inay naagta la haddana tii kale haddana dhakab isku dhacday no there is problem oo gaalka dhibaa jiro baasaboorka meesha dhigtay in Soomaaliya marka meesha maray maxaa dhaca naagta waxa u dhaca mar ishaan isku qabatay waa ka shakiyay u dhaanay baasaboorkan hal ilo la'ay ninkii marka Soomaaliga wuxuu dhahay naagta waxa hay u dhaca cudur loo shimbirow cudurkan shimbirow qofka marba in loo isku qabto sabab u dhaca marka ilaa amarkiisa baasaboor sawirka wuxuu ku dhaca u dhaca ishaan isku hayso hadda waxay kadib ishaan kale isku qabanay u dhaca naagta هذه ورشة كذا بومسك شاكي قصر بدل يضربوك بينهم جرت